bismillaah alxamdulilah ilaaha mahad iskale walaalayaal meel walbo joogtaan soo dhowaada. waxaan daafurnay cashirkeennii kan ka horeeyey reaction chemical kinetics. waa maxay socodka tamarta ama socodka falgallada kiimikeed iyo qaabkay u sameeyaan. marka waxaan kusoo qeexnay halkaasi maxaa loo yaqaanaa chemical kinetics. chemical kinetics waxaanaanay waa heerarka falgalka kiimikeed iyo waxyaabaha sababa inay dhacaan heerarkaasi falgalka kiimikeed iyo sidoo kale hababka ay u dhacaan ayaa waxaa loo yaqaanaa chemical kinetics. intaasi kadib waxaan ka soo sheekaynay xawaaraha falgalka uu ku dhaca ayaan ka soo sheekayn reaction rate waxaan ku dhahnay xawaaraha falgal bilaabayaashu aysan kusoo muuqanin falgalka wixii kasoo baxayn ay kusoo muuqdaan ayaa waxaa loo yaqaanaa reaction rate. kaas waxaa loo yaqaanaa aan ku sheegin reaction rate. intaasi kadib waxaan nooga xigtay qaabka loo xisaabiyo reaction rate-ka ayaa inooga xigtay. hal example aan ku qaadanay. examplekaas oo ka sheekeynaya concentrationka iyo timeka markay reaction rate yihiin qaabka loo xisaabiyo ayaan kusoo qaadanay. waxaan ka bilaabaynaa examplekeena labaad oo ah reaction rate-ka oo lagu xisaabinayo mol iyo time lagu xisaabinayo. waayo the following waxyaabahan soo sax reaction take place for lithium plus oxygen lithium oxide meeshaas oxygenta capital ka dhig sidaas ay igu qoray ka dhigo. after 2 minutes 2 daqiiqo kadib intaasi kadib after 2 minutes 2 daqiiqo kadib 4 gram of lithium 4 gram oo lithium ayaa la isticmaalay. haddaba xisaabi rate of reaction heerka falgalka kiimikeed. waayahay haddaba xisaabi rate of chemical reaction. maxaan sameynayna marka garaama haysanaa. maadaama garaam aan haysano garaamkaas waan bedelaynaa. waxaan bedelaynaa mool. macalinow sababta mool loogu bedelayo maxay tahay? sababta mool loogu bedelayo waxay tahay heer reaction rate-ka waxaa lagu xisaabiyaa mool lagu xisaabiyaa. maadaama mool lagu xisaabiyo garaamkaasi waxaa fudud in loo bedelo mool. marka garaamkaasi waxaan u bedelaynaa mool. garaamka daaragtale uguma dhigi karo reaction rate-ka uguma dhigi kara. saa darteed marka moolku maadaama lagu xisaabiyo reaction rate-ka garaamka asiga ayaan u bedelaynaa. hay marka loo bedelayo marka wada nuuce la maraa qaab nuuce la maraa marka waa su-aal. waxaa la maraa moolka iyo garaamka waxaa ka dhexeeya sida caadiga in chemistry waxaa ka dhexeeya molar mass. molar mass waxaa loo yaqaanaa waa culayska curyaha amaba waa culayska isku dhisyada meeshaas yaalla ay yeelan karaan waxaa loo yaqaanaa molar mass. waayahay hadda waxaa yaala 4 gram of lithium yaay taalo lithium. molar masskan wuxuu noqonaa culayska lithium ayuu noo noqon doonaa. hadhow kale marka arday haddii aad tahay insha allah waa lagu siinaa kaas. inta badan ardayda waa la siiyaa marka molar masska waa lagu siinaa. laakiin arday basica ka dhisan aada u yaqaano maadada waxaas oo kale uu fahansan yahay kor ayuu ka fahansan laakiin ardayga waa la siinaa molar masska. waana insha allah waa arki doonaa haddana xisaabi doonaa. fast marka ugu horeysa maxaa gifin inoo ah maxaase inagala rabaa. steebka koowaad waxaan mari doonaa qaabka kan ayaan mari doonaa. marka gifen waxaa inoo ah oo aan haysanaa markaan fiirin walaalayaal gifen waxaa inoo ah oo aan haysanaa 4 gram of lithium ayaan haysanaa. 4 gram of lithium marka intaas aan haysano calculate xisaabi maxaa la xisaabinaya reaction rate r reaction rate ayaana la weydiiyey sooma. waayo maxaan haysanaa sidoo kale gifin inoo ah waxaan haysanaa timekaan haysano waa 2 minute waa 2 daqiiqo wa soomaaha 2 minute wa. haye kana marka naga rabaa oo inaan xisaabino. marka ugu horeysa fast waxaan soo bedelaynaa garaamkan maxaan u bedelaynaa mool. mool waxaa lagu helaa step 1 stepka koowaad marka kana maraynaa n ayaa loo qaataa number of mol waxaa loo qaataa n small. marka waxaa waaye number of mol waxaa lagu helaa given mass culayska aa haysatid oo loo qeybiyey molar mass. macalino molar mask inteen ka helaa waxaa ka ogaanay molar mask aa ka helaysaa curyaha meesha yaallaa ka ogaanay. curyaha hadda meesha yaal waa ke waa lithium wa. maaska hadda aan haysano meeqaa marka waxaan u qaadanaynaa marka molar mass insha allah waa lidiin siinaa imtixaanka ardayda waa loo soo qoraa inta badan. molar mask waxaan u qaadanaynaa 6.94 gifan ahaana asigana u qaado. marka wax adag ma aha ha ka argagixin gifan ahaana lagu sii doona asigana 6.94 waa molar mass
of lithium, more mass of lithium. sidaas ayuu noqonayaa 6.94. maxaan haysanaa marka 4 gram ayaan haysanaa 4 gram oo loo qeybiyey 6.94 6.94 gram per mol. saasaa lagu halbeegaa more masska. gram iyo gramka waa isla baxayaan. waa kana marka scientific aan soo qaadana aan isku qeybina marka dhankii scientificna keena. waaya waxaan leenahay marka 4 loo qeybiyey 6.94 6.94 maxaa soo baxayo eber. waxaa soo baxay n oo mol ah waxay la mid noqonaysaa eber. waa kaas jawaabtaas uu soo saaray scientifica ayaan qoraynaa eber dhibic 576 mol ayaan qoraynaa insha allah. qaabkaasay noqonaysaa eber dhibic 576 mol ayaan qori doonaa haddii aan la hidmo. waayahay sidaas ayaan usoo helnay qeybtan. marka intaas aan soo helnay kadib maxaan samay doonaa waa kana marka buugga steebka koowaad uu ka dhigtay. steebka labaadaan mari doonaa kadibna. steebka koowaad waa kaas intaan soo saarnay buugga uu soo saaray. steebka labaad waxaan bedelayaa change the time. change the time timekaan bedeli doonaa. change the time timeka bedel. maxaa loo bedelaa second? sababtu maxay tahay maxaan loogu bedelaya? waayo rate of reactionka timeka lagu halbeega ayaa second ah ee minute ma ah. saa darteed marka waa bedelaynaa maadaama rate of reaction lagu halbeega second, timeka second aan u bedelaynaa. waa ay fahantaan filaa. waayo 2 minute 2 daqiiqo minute ayaan ka socdaa. minute ayaan ka socdaa waxaan u socdaa second. halkii minute waxaa ku jirta marka 60 second. waxay noqonaysaa minute iyo minute inay isla baxaan. meesha waxaa ka soo baxay kadibna waxaa ka soo baxay 120 second ayaa ka soo bixayso. 120 second minute iyo minute oo isla baxayaan. 120 second ayaa guud ahaan isla bixaysa markaa ka hadlayno. waayahay marka steebka saddexaad rate of reaction r aan soo helaynaa. r waxaa lagu helaa mol oo loo qeybiyey timeka aa haysatid ayaa lagu helaa. goorma arta lagu helaa rate of reaction? goorma qaacidaan lagu helaa? waa markii mol iyo time aa haysano. waa concentrationka markii horma ahayd. tii hore maxay ahayd concentrationka iyo timeka oo haysatid ahayd. tan laakiin mol waa seen ku kala ogaana? waxaa ku kala ogaanay tan mola lagu siinaa ama grama lagu siinaa ku ogaanay. taasna waxaa lagu dhahaa c1 c2 initial concentration iyo isku mid ma xataa iskuma dhaba xataa qofka caaqilkan uu fahmi karaa. waayahay moolka marka meeqaxan haysanaa? marka moolka waxaan haysanaa eber dhibic 576 mol ayaan haysanaa. intaasaan haysanaa oo loo qeybiyey 120 second. intaas oo loo qeybiy 120 second. waayo markaan isku qeybino reaction ratekeeda wuxuu la mid noqonayaa walaalayaal. markaan firino reaction ratekeen waa kana eber dhibic aan soo qaadano qoys iyo fur eber dhibic 576 oo loo qeybiyaa leenahay 120 second. maxaa soo baxay markaan firin? waxaa soo baxaya eber dhibic eber 48. waxaa soo baxaya eber dhibic eber 48 mol per second. mu jeeda marka qaabkaas soo bixayso. buuggan inuu soo saarayaan filayaa inaad fahanteen wax badan aad ka fahanteen ayaan filayaa walaalayaal. waa qaabka markaan firino guud ahaan qaabka loo sameynayo walaalayaal. sidaas ayaana loo xisaabinaya mid walba. intaan soo saarnayna wuu soo saaray buugga. mol per liter per second. mujeeda marka meesha secondka -1 kor ka saaran ber ayaa loola jeedaa. waayahay waa ka soconaynaa. waxaan aadaynaa reaction rates stoichiometry. reaction rates stoichiometry. ereyga stoichiometry waxaa loo yaqaanaa heerarka falgalka kiimikeed ee sameynaya stoichiometry. ereygaas wuxuu ka imaaday stoichiometry 2 erey oo ka imaaday. stoichiometry 2 erey oo ka imaaday guud ahaan marka laga hadlaayo. labada erey waxay kala yihiin osteoion STOICHIO. intaa marka waa stoigio waa sooma. stoigio waxaa loola jeedaa macnaheedu measure. stoigio macnaheedu waxaa loola jeedaa measure. osteigio oo macnaheedu ay tahay measure. osteigio macnaheedu ay tahay element cafwan.
ostijo macnaheedu ay tahay element ostijo oo ay tahay macnaheedu element ostijo oo loola jeedo element oo curiye ah iyo medri oo ah mitr element medri oo ah element labadaas erey ka imaad marka laga hadlayo guud ahaan measure aan dhaha cafwan element kii hore aan dhahaya kii hore element aan dhihin measure waayahay hilmaan hadal kuma jira waayahay marka element iyo midri waa element waxaa loola jeedaa element marka laga hadlayo waa curiye ostijo oo loola jeedo element iyo midri oo loola jeedo measure waa element measure in la cabiro curiyihii waa macnaheedu saas waa marka cabiridda curiyaasha ee lagu halbeegayo rate of reaction iyadoo lagu halbeegayo waayahay aad iyo aad ay u fududahay isla fiirin walaalayaal qaabka u dhacayso sinis maadaama wuxuu leeyahay marka relate markaan wada xiriirino the concentration of reactants iyo productska and reaction rate markaan wada xiriirino sinis maadaama the rate of reaction heerarka falgalka kiimikeed sinis maadaama the rate of reaction waa maxay heerarka falgalka kiimikeed can be expressed waa la muujin karaa sida the change isbedelka in concentration ee xooganaanta of any reactant ee falgal bilaa walba or amasan product falgalkaas wixii ka soo baxay ayaa lagu muujin karaa waayahay sinis maadaama rate of reactionka loo muujin karo isbedelka xooganaanta iyo sidoo kale any reactant isbedelkaas xooganaanta wuxuu ka dhici karaa reactant walba iyo product walba ayaan lagu muujin karaa leeyahay the two rate expressions labada qoraal ee heerarka falgalka kiimikeed are all related dhammaan waa mid la xiriira to one and other midka kale ayuu la xiriiraa according to iyadoo loo fiirinayo reaction stoichiometry waa maxay falgalka ay sameeyeen stoichiometry following this step yadan soo socda la mariyaa marka ugu horeysa arday waxaad qortaa right qor the concentration of reactant oo mains wata ayaa qortaa in terms adigoo erey ahaan u qoraya waxaad u qoraysaa d oo u taagan delta isbedelka dhacay oo ku dhacsan rate and reactant artan waxay u taagan tahay rate mee waa reactant oo ku dhacsan reactantiga wixii yaalay curyaashii yaalay oo loo qeybiyey isbedelka waqtiga haye oo haddana anna sidoo kale waxaa kaloo qoraysaa productska oo termis erey ahaan u qoray markaa erey ahaan u qoraysa balaas iyagoo wata delta b product u tagan tahay delta productga wixii yaalay oo loo qeybiyey timeka horta kooda hore intaasaa samaynaysaa uu leeyahay marka koowaad waayahay marka productiga oo qaabkaas loo qorayo productiga oo sidaas marka delta product oo loo qeybiyey delta time loo qeybiyey qodobka labaad marka intaasaa samaynaysaa qodobka koowaad maxaad samaynaysaa reactantiga oo erey ahaan u qoraysid erey ahaan marka la maxaa curiyihii calaamadiisa qoraysa oo macnaheedu saasaa loo jeedaa equalize idan qodobkan labaad maxaa equalize meel walba termi walba markaa qortay curiyo walbaa qortay ma qortay ma u samaysay equal dhigaysaa waa equalize equal ayaa dhigaysaa waa the rate expression qoraalka heer falgalka kiimikeed waayahay oo heerarka falgalka kiimikeed of reactants iyo productska anteed dhigaysaa reactantska iyo productga waad dhigaysaa leeyahay qodobka saddexaad stoichiometric coefficient of the equation is always expressed waa loo qoraa in the denominator hooseey ahaan coefficientska ay wataan curyaasha hooseeyaa ka dhigi waa fahamtay soo maa waa ka saddexdaas qodob ayaan ku dhaqmaynaa waayo example fiiri right qor the rate expression of the follow reaction in terms adoo u fiirinayo of disappearance waxa aan soo muuqan karno oo reactantiga of the reactants and appearance waxa soo muuqan karo oo productiga waxaa inoo taala 4 ammonia gas plus 5 oxygen gas waxaa ka soo baxay 4 nitrogen monoxide gas plus water gas ayaa ka soo baxay waayahay bal midaan aan ku sameeyno rate of reaction aan ku sameeyno oo aan qorno qaabkan uu buug u qoray ayaana loo qorayaa horta maxaan haysanaa marka hore reactionka aan haysana waa qaabkee reactionka aan haysana markaan fiirino walaalayaal wuxuu noo noqonayaa